بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan dhamaantiinba halkan waxay aan ku soo booqnay boqor Cawil Xasan Cirmadow waan doonayay barsu'aalo yar inaan ka weydiiyo xaaladii maanta dalka ka dhacday Somaliland iyo bal wixii magaranaysa munaasaba marka waraysi loo gaaban la yeelan doono ayaan doonayay halkan inaan idinku soo gudbiyo. Assalaamu calaykum boqor aad baan ku salaamayna. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. boqor xaaladda dalka waraysi ahaan marka hore bal xaaladda dalku halka uu marayo Somaliland iyo dhibaatada maanta ka dhacday bal xaaladda horta bal wax tibaaxa naga sii. والله عبده وقت هذا وحال ضلكم مرة يودي إنه ويدوي ودوك سوري أو يقصني ما أنت سوى ما أنت ما أنت سوى ما أنت من ما ذكر الله من ما قرر ما أنت كلا الله ويان من ما قرر بوحدة ما أنت كلا الله ويان إذا مرة هالك أي صوت شبابي واحد كل عيو داو اللي ما شاء الله كمرة صدقت كل هالك مرة يولوجي ما أنت لو موصل هذا معي ومدعوينه يجي ما أنت تاجري أنا أقول حاجة سوى عن تاجري موسى ومدعوينه يجي قرن باري دقيقة قبل ما تاجره نما كان هالكن يرجع على تكون مسؤولان بورت تجي نما كان حسبية ده صدق وسط حسب قرن أنا كاتر ولا أكسني أنا ترى كوي أمني أنا كوي أمني أيوم بالله يسكو هيا دتك عبدي فدا كان عبورية قرن نما داو عو جيسني داو عكل عينه قرحت لو جيستي داو جيسني وحلاه واتاس wax ka guro shalayna aadun baa dhicin jiray maanta aadun baa laga rabaa inaad dhiciso waxa ina deeqda qarannimo waxa lagu baaqayaa beelaha beesha garxajis meel kasta ay joogaan G26 iyo meel kasta isku urursan tii loo baahnay dagaalkii maanta taagantay shalayna lixli iyo maxamed cali iyo hebel lixli aan tirin karay ma soo dhinto ka saari jiray maanta aad ku sugaysaa ninka waxay caddo dhowdu ma dhacsan ama dhowdiin ma dhacsan Muuse kursi haysta idin ka dhacsan kursiga waa la isaga imanaya far baa lagu saaro farna waa laga rogaya qarannimay taagantay tignikadeenii iyo meedkeenii saraakiisheenii waa la hayaa haddaan midigtu bidixdu waxba ma goynayso midigtu haddaan bidixdu caawinayn haddaan qarannimadu ina deeqin haddaan midnimada Somaliland ina deeqin waxaynu gaadhnaa ma jirto kursigaa doonaysaa waxaan u sheegayaa Muuse waxaan u sheegayaa walaal Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo ninka lagu yiraahdo Faysal Carabaawe kursiga qaranka u sarreeyay doonaysaa inay qabataan taaku maanta ku qabsanaysaa inta kamid inta dreeska xirtayna jiida hore gashaan jiida hore tagtaan oo ummaddu idin eegatiyo ciidanka moralkiisa soo celisaan taasuun baa maanta lagu badbaadiyaa qaba ta qaran ku dhisnaan karana waarta ka taa shacabka ku kasban kartaana waarta halkaas ka doonaysaa fariyaasha ku dhiidaysan lameedan halka furayaasha ku wadaan reerka la hadlimaayo beesha ka soo jeeda la hadlay furayaasha bartana ku deydaysi inaan kursiga ku fuusho taad ku helay Cabdiraxmaanow ama ninka lagu yiraahdo Faysal Caraawow waa inaad dreeska xirato oo halkii lixda ka dhintay ay maraysa halkii Maxamed Cali ka dhintay maraysa halkii Harwaafi ka dhintay maraysa de kuma soo tirin karo halkii raggaasi ka gurmadeen bay maanta taagantay shanada ka saaray maanta aad ma ka saari karo qarannimada doonaysi xusbinimadaadu inay shacab baxdana markaad suurka xirataan xagga hore tagto kunka inaan wadanka jooga way ku raacayaan sida walba xorriyadda u soo hinjitay soo dhicita soo dhaanaysa qasab waxa ku ah Somaliland inay ku doorato codka ka hesho waxaan idin sheegayaa inaa iminka si dhibdhaw cadowdhowdhowda idinma dhacsana weli idinma dhacsanee inaa qarannimadii doontaan maxaad xukumi oog baa la marayaa bal marka lagu yimaado hargeysa loo dhaxaya isagoo uu ka sii fogeeyo inta loo sii socdo waa busii noolaan doonaa Djibouti buu iska geliyay dalka adiga leh adoo garxaj saalle adoo xusbi qaran leh adoo shakhsiya baa leh kala hadlay waa kali daawanaya waa adiga kali daawanaya kula hadlay ya kala midka ay daawanaya intuu qori qaatay intuu tagay yiri wala ciidamada shaba ku dhacay meedkaaga ku xiga si xil lagu tiro si xil lagu jiido qarannimadu waxay kugu deeqaysaa xusbinimada iyo kursiga fuulaysa maalinta dagaalanto waxaan uga tacsiyeynaa ciidamada qaranka ee bartaa ku dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jannadii geeyo inta dhaawacaan Ilaahay inuu booqado ciidanka qaranka Soomaaliland waxa la guuleysta way guuleysan doonaan war laga shaqeeyo sidii wax la isaga celin lahaa dalka loo difaaco muusaan la hadlaynin qof kale la hadlaynin qarannimada baa maanta ugu weyn qarannimada waa in xusbiyadu ogaadaan barta ay ku jirto codkooda ay kursiga ku fuuli karaan waa inay ka raadiyaan halkii gaari karto taadi Muuse horta inoo soo horta wada aragtaa laakiin yaa lagu hadlayn okay maxaad iyaga
ka qabtaa wax waraad ka haysaa ma jiraan ciidanka qaranka waxaa soo dhex galay khilaaf burburka iyo kala jabka maanta yimina iyo ciidanku inuu jabana ama khasaaraha badan uu soo gaadhana waxaa dhexdooda aynay khilaaf soo dhex galay beelaysani inuu jiro warka maxaad ka odhanaysaa inuu arkaas jiraan sheegayahay horta marka qaran meel isugu yimaado uu qaran meel isugu yimaado ciidamo meel isugu yimaadaan asay xurguf walaaltinimo hoosoo rag badan oo qaranka caroodina ay jiraan carooyinkaana dee uu muuse u soobiyo aan maanta madaxweynihii iyo aan maanta kala hadlaynin waana ii oolay waa wax dhaca oo qaran kasta ku dhaca waa taladii muusun baa soo urtay laakiin maanta inaan ciidanka kale jajabkooda sheegana ma doonayo oo ka hadlo midayntooda mooyaane madaxweynahayga inaan dhaleeca u soo jeediyo ma doonayo madaxweynaha qaranka far baa ku saaro far baa kaga rogaya laakiin xisbiyadayda qaranka iyo beesha garxasaan joogi laha ka gaashaamo fadhiya iyo ka gowrgar jooga iyo ka jooga xiisiyama iyo ka jooga hargeysa dusheeda waxaan u sheegayaa inay qarannimadu idinka goranto maalintiinii ay tahay maalintii dalka la daafici jireen maanta tahay maxaad xukumay hadda dalka daafici weyno waxaan idiin hubaa xisbiyada qaranka ciidanka jooga gacan libax iyo ka ood weyne jooga iyo jaamadaha la abuuray intaba kaxeeya saraakiil bay sooda ku yihin halkoodaasay saraakiil ku yihin kaxeeyo jiidda hore geeya saab kaxeynaysa haddaba maxay tahay anigu hoo labada xisbi qaranba ucud iyo wadani midna muu saarna ciidamada midna raalli kama aha waa dad cadiifada madaxweynuhu maamul xumadiisa keentay ka baxay dadka qaar baa ku dhaleeceeyo dadkaana joojiyaan le waxaa dadka qaar baa ku dhacay xusbiyadu ka dambeeyeen xusbiya kamay dambeyn cadiifada ka jirtay miidiya iyo fashilmo meel wax laga duubay reer hebel baati muuse soo kordhiyey ayay ka yaaceen waxaan salaysaa kuwa hogaamisaan oo wadada saxa u tustaan nin walooba aroorta marka waagu kuu bariyo caawa waagu markuu kuu bariyo waxaan leedahay dareeska xidho jiidda hore tag labada xusbi qaran baan la hadlayaa wadani iyo ucud jiidda hore tag gooja cadda gala kasoo galayl gacan libaxna kasoo bixi ka oodweyna galana kasoo bixi ka jaabada abuurayana uu dhigay uu soo bixi hormuudkii reerkaata hormuudkii qarankaata kii kursiga lahaabaatay maxaad ku fadhiisaa dadka dhamaadaba maanta waxaa aad baan aad iyo aad baan shucuurtaada ay u kacsantaha waan ku arkaa boqor qadiyadda somalilandna halkay kaa taagantaha waan ogahay qabyaalada iyo waxa somaliland soo food saaray inaad adigu ku lug lahayn amase aanad inta badan u ololayna waan ogahay marka haddeer waxaa jirta guulo fara badan oo aynu indheheena ku aragnay oo ay gaadheen kooxda SSC amase nimanka dhulbahante oo maanta soo gaadhay dee oog dusheedaba joogaba iyaga nimankaa maxaad ku odhanaysaa anigu dhulbahante dalkan wadaneena sida aan u cadiifadaystaa nimankan wax leeyahay waa nimanka kasoo harti ah ee majeerteen iyo mareexaana ee ogaadeen leh ee isu soo gurmaday halkaa yimi ee qaranka inay dumiye haysmay waxaan leeyahay kii lib lagaaga dambeeya libtaad moodee maaha lib lagaaga dambeeya waa inoo midaan waasac baad leeyahay waa inoo ilaahay iyo waaga waraaba cuni intaan niniga nool yahay haddaa iska idin garxaas maxamadda ka maqan intaan niniga nool yahay wallaahi baydaan baktigayga arkay wallahi gaalma yar waxaan bay bartatii waxay badan way dambaysaa maxaad kula talinaysaa madaxweynaha muuse biixi oo aad arkaysa xaaladda dalka halka ay marayso isaga laftirkiisu aan maanta kaba hadalba waxaase aan anigu indhahay ku arkay inay ka hadleen labada xisbi mucaarad guddoomiyaashoodu iyaan guddoomiye odhan musharax cabdiraxmaan cirre iyo ninka la yidhahdo faysal calwaraab arrinkaa way dhaliileen wayna ka hadleen waxayna yidhaahdeen waxa weeye meelha looga soo wada jeesto somaliland muuse laakiinse weli alaan anigu madaxweynehayga waxaan leeyahay anigu ragga dhaliilsan baan kamid ah ragga ana xuquuqiisa doonayn baan kamid ah ragga taladiisaa soo orisay siyaarkii baan kamid ah ragga inay afka ka hadlaan oo ummadda kala fogeeyaan oo reer hebel ka dhigaan diidan baanan ka hadlayn intaa dagaaladaas socdeen iyo jaabadu baxbaxaye ninka qura miidiya soo fadhiista ka hadlimayay raggiisi waxaan u garanaya waxaanan diidanaa wuxuu dhaha halkan eegyo waxa ka sokeeya war waxaa eegyo waxa ka sokeeya waxaan diidanaa qarannimada inaan hoos loo soo rino ciidamada niyad jibin ciidanku niyad buu ku haystaa muuse asaga qabyaalada gaarsiiyey in jiidda hore qabyaaladu tagto ninka habarweynis ninka ciise muuse ama ninka xabaska ka dhufto sidii madaxaanku kale muusaa gaarsiiyey ciidanka jabitaankiisa waxaan salehay talaada kuu soo hortay iminka dadka dhegeyso kugu dhacdo iminka weli madaxweynehaygii baat waan ku ogolay inay xoreysano dalkeenna waan ogolay laakiin ummadda adigu dhegeysaan ku leh dhegeysigii baa kaa maqane ummadda dhegeyso haddaad ummadda dhegeysan layd wax badan baad gaari layd waxaa ugu baaqay boqor buur madow baa hadlay isna aad iyo aad arrinkaa uga hadlay wuxuu muuse biixi ugu baaqay in iscasilo adigo arrinkaa ma ku raacsanta ha si weyn aada weyn waata qura dilku badbaaday buur madow
وحويا عاد بانو سبورسنا إن بدن وأنا سكسر هرجين حق السياسة إما كان لكن عاد بانو سقولون وأنا وحكرا وأنا أقول تيسو بالله طيب وأنا وحفهم كرا وأنا كرا وحصوص هذا نقول وحنا أجي وحكي كيف نقول مركو واحد غير أحكي كرا وأمريكا قولها فهم كرتو والسياسة بس هذا على كرا وحكوا سويتان كنيسيتي كرا وأنا واحد أقول بقى إن بدن تيرجريين دتكو تسعى هذا maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa ciidanka qaranka iyo moral jabka maanta ku yimi maxaad adigu ugu baaqaysaa ama kula talinaysaa ciidanka qaranka marka hore mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamay ala guul ilaahay hortiina haya labaan leh waxaan ugu baaqayaa kalaajada dambe inaan ku dhicin ninka qaranka ee Soomaaliland ama habar yoosto oran habar awal habar jalan oran gudo biirsina oran warsan galno cidnaba aan oran ninka ciidanka qaranka inuu walaalkaa iyo inaad aaminsanaato وإنه كل عقاد ينوي وين مسلاته يعني ميديا هن إنما تيك توك يريري بالكلام يقولون كان موسى سوق قال من نملا كوبانا لبعض حسبية لنا اللي يمك هالله هذا الله بحنا أنت دريس كان كوارك يدكوا شيء برعنا فيها ذلك عيدك وجامنية يدكوا برعنا فيها وحيقول الله بالله يقول الله بيشرب هذه اللي كاس كل شيء كتبين إنان لقب خبر يا حدين لبعض عن هالكاميرا وطلع إلا قبل عيدك مورال كيسين يدور يكون عنده ومركي هل حكي لك هاي عده وصل لك هاي تقع واحد جالس متقنا وسوكيا مساينا هدي سوكيا سقطان كل ويا مرات كوكبت تا ماشي كسارين هدي لما صار كاميرا تاس ماشي كبايسة وحاول على يعني كعد سنين ومدحوينها كمستقبل كان عبد الحميد محمد عبد الله علو كعب الطريق وأنا كعد سنين هالجماعة وين نكلم بيقول على فيس ولا كعد سنين إنني موسد الكويت إن دريس كانوا تحدنا وضدك وتشيئا تقول عينك تشيئا وضدك أوروريان وضدك دير قادا تقول اللي قبل بهذه كروتها موسى وحلا هل كان يسكت عينك ليش كان ياخذ بيان شيء دورينك ياخذ بيان بالله عاون كليب كوخت أدي بارك الصلاة أنت يا ربي بتعالى ونحن استمر قال باري تناور تعالى بتي قال باري ترى سعد سعدتي واركنت بايغنا تنقولي جي بالجوي يا عاو أنا بقول علم لو قولي جي بالجوي كبر على جوي كشافين على جوي وأنا ما يجي لا مركب ما برش على عنو ما يسمع يلا كلا قادم إذا كقرنك عدول بو كنت عدول بو نوع عقولي والبو يتابع يلا كلا قادم ومن لماذا ينتقد قرن لماذا ينتقد لماذا نحن حقوق جامنية قوانين كل مسكين كم حيسار جيسا كراسة هورا فريستا الله واحد لا كراسة هورا فريستا تذكر شيء تلك السيرك البوكلية هذا مستقبل كربتان أنا كوارك شيء دور أدي بقر ما هتصنتهاي إلهي ذلك إنه حنا نقبقنا وقبرينا إن إلهي نبض كوسة تبانو تذكر شعور تود إلهي سوساقش آمين هذا ما هتصنتهاي الله